السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو حروانا كسوقاتو موضوع وإك خيالي موضوع وإك إن عن dadka markay maqlaan ama ay arkaan ka cararaan oo aan u maleeyaan inaan wax laga keeni karin. laakiin waxaa idin xasuusinayaa in xalka mushkilad ama fikrad adduunka waxa bini aadan ee wax soo saaray oo dhan ilaah baa ka dambeeyey. ilaahay sidii adduuda aan ugu noolaano fikradda xalka ah wuxuu soo dhiibaa bini aadanka maskaxdiisu soo geliyaa. haddii kale lama noolaan lahayn. aadam iyo xawa markii la abuuray ay socdeen ay tarmeen in ay cunto helaan oy ku noolaadaan inay biyo helaan ilaah baa ugu talagalay. laakiin ilaahay ma u dhigin meesha, ma dhihin, lama soo hadlin mar walba malag lama dhihin meeshaa tag cuntadaa samee. tatawur noloshii waa isbedeshay, laakiin markii fikradda qofka loo baahan yahay in uu ku fikiro ilaah baa qalbigiisa waafajiya soo geliya. waa tii in bini aadanka markii qaabiil iyo habiil walaalkiisa uu rabay inuu ma ogeen in dadka la isduugo. wuxuu arkay xayawaan oo maaragtay oo sidoo kale sameynayo shimbir oo duugaysa. marka fikraddii uu qaaday ilaaha ugu talagalay. marka mar walba xalka bini aadanku ku dhex jira ilaaha noo soo dhiibi waa inaan ka fikirnaa. marka su-aasha waxaa waaye sidee Soomaaliya xal waara loo keeni karaa? xal waara macnaheedu waxaa waaye xal problemka soo noqday loo joojin karaa. problemka noocee waa problem qabiil iyo qabyaalad. waa problem aniga iyo faamilkeyga ayaa rabnaa inaan wax cunno, wax fiican helno, wax xukunno, dadka kalena in ay naga hooseeyaan. waa practically waa sidaas dhab ahaantii. mana aha wax ku cusub adduunyada, mana aha wax maaragtay la yaab leh. waa natural. maxaa yeelay human being ayaa marar badan aan sheegnay bini aadanka waxay geniskooda hidasidayaashooda waxay ay maaragtay ay kala siman yihiin xayawaanka qaar ka mid ah. sida xayawaanka oo kale, xayawaanka markay rabaan inay wax cunaan xayawaankii ka xoog badan yihiin ayay cunaan. markay rabaan inay wax sameeyaan marka bini aadankana mararka qaarkood waa yacni waxaa loo maleeyaa inay bini aadnimo jirta, laakiin in qofka inuu asaga noolaado dadka kale xataa waa u dilayaa, waa u dhacayaa. marka dilkan iyo dhicitaankan xayawaanka waa is cunaan, way is dilaan. bini aadankan haddaa fiirisid maalin walba sanad walba dagaalaa dhaca, dadaa dhinta, dadaa la dila si dad kale ay u noolaadaan. markii laba reer ay isdagaalamaan wax walba ay ku dagaalameen, reerkan uu dadka dilay maxay rabaan inay dan gaaraan. dantooda maxay tahay ama dhul inay ka xoogaan, ama lacag ay ka qaataan, ama ceel ay ka xoogaan si ayaga ugu noolaadaan. xayawaankana waa sidaas oo kale. adduunkana sidaasay ahaan jirtay weligeeda. dagaaladii hore, dagaalka koowaad iyo labaad waa 100 sano ugu dambeeyay, laakiin wixii ka horeeyay kumanaan sano weligeed sidaasaa la isku baabi'in jiray, la isku dili jiray. marka waa human nature. marka laakiin tatawuraa la gaaray, waa la horumaray, khaldaad badan ayaa adduunyada la sameeyey, waa la qoray, khaldaadkiyaa laga faa'iidaystay si horumar loo gaaro. marka Soomaaliyana waxaa u baahannahay in khaldaadkii adduunyada ka dhacay iyo khaldaadka Soomaaliya hadda ka dhaca 30 sano inaan isu keeno si loo helo siyaasad fiican, generationka cusub ay ka faa'iidaystaan, ama dadka hadda waddanka haya ay rabaan inay ka faa'iidaystaan. si arrintaas aan u xalino waxaan soo qaadanaynaa sidee Soomaaliya xal siyaasadeed fiican loo gaari karaa. marka waxaan isweydiinaa marka hore maxaa isku haya qaran? Soomaaliyana maxaa isku hayn jiray weligeedba intaysan kala burburin 90kii? adduunyada dhan waxaa isku haya qaran waa isku mid. waxaa isku haya qaranka waa sidii xayawaanka oo kale. xayawaanka lo badan markaa rabtid adiga in aad meel ka kaxaysid, meel kala geysid, aad ka baqaysid inay kala dhadaan, waxaa sameynaysaa hoggaan u sameynaysaa. yacni wax baa jira aad maaragtay si ay meeshii u gaartid waa inaad la timaadaa hab oo aysan kala dhicin. bini aadankana waxaa waaye waxyaabaha isku hayo waxaa waaye waxaa u baahan tahay shacabkii in ay aaminaan inaad adiga tahay qofkii talada hay oo la dhegeysanaya. waa inuu jiraa oo uu jiraa qof la dhegeysto iyo dad taladii raacay.
waa inuu jira sharci ciqaab ah oo haddii qofkii meesha ka leexda isla markiiba qabanayo oo ciqaabayo. marka sharcigaas si dadka ay uga cabsadaan inay jidka ka leexan marka jidkii ku soconayaan loogu talagalay. labadaas waa muhiim. waxaa kaloo muhiim ah si qaranku uu shaqeeyo in adduunka oo dhan dadkao dhan ma wada talin karaan. meel walba aa fiiriso dad baa taliya. dadkaa taliyana waxay noqon kartaa in waayadii hore waxay ahaan jirtay in dadka xooga badan inay qabsadaan, dadka caqliga badan, dadka lacagta leh inay qabsadaan. markii dambe sidee u socotay waxaa la soo saaray wax dimuqraati lagu sheego oo la dhahay in dadkii shacabkii in la weydiiyo, shacabkii qofkay ku kalsoon yihiin sameeya. marka soomaaliyana waxaa 50 sano waxaa isku hayay waxay ahayd marka hore anagoo aaminsan beelbeel ayaa haddana waxaan helnay fursad in xukun waxaa imaaday 69kii xukun military. xukunka military maxay dhahaan guddiga xisbiga oo is haysta ayaa waxay go-aan ku gaareen si wadanka ay maamulaan. militariga ayaa waday, militariga ayaa adkaaday, booliiskii militariga ayaa adkaaday. marka wadankana waxaa muhiim ah in haddii dad ay meesha ka leexdaan waa in military adag, booliis adag, nidaam adag oo nidaamka iyo sharciga maamula in la helo. haddii taa la waayo ama meesha ay ka baxdo wadan walba waa isku dhacaya. maraykanka ayaa isku dhacaya haddii law and order oo ah sharciga iyo nidaamka wadanka amniga haddii meesha ka baxo waa isku wada dhacaya. soomaaliya kaliya kama dhicin, wadamada carabta oo dhan ayaa sharcigii meesha ka baxay. sharcigaasna wuxuu uga baxay in kalsoonidii dadkii ay ka cabsanayeen ay dhahayeen haddii aad qalad samaysid, haddii aad jidka ka leexatid waa lagu xirayaa, lagu dilayaa. kalsoonidii ay dhammaatay. sidee ku dhammaatay? waxay ku dhammaan kartaa iyadoo dadkii been loo sheego, dad mucaarada ay wadankii khasaan oo been ay u sheegaan oo ay dadkii kacaan, ama dadkii in ayagoo ogsoon dhibta ay ka badatay ay qarxeen oo ay dhaheen mar uun waxaan kuma noolaan karno. sida maalanba maxay dhahaan kacaankii ka dhashay wadamada carabta, dalka tunisia ka bilowday. wiil hal qof dhalinyar ah ayaa wuxuu arkay dhibaato weyn in lagu hayo xukuumadda inaysan cadaalad ahayn, in dhaqaalihii wadanku uu xumaaday. marka problemkii markuu ka batay go-aan wuxuu ku gaaray inuu qarxo. markaasuu waa isgubay. marka dadkiina markay arkeen waxay ogaadeen in la kici karo. kicitaankii sidaasoo ku bilaabatay ilaa marka taana way keeni kartaa in ay kalsoonidii dadka ay ku kalsoonayeen dowladda iyo cabsidii ay ka qabeen haddii meesha ay ka yaraato ama ay ka baxdo burburkii ayaa imaanaya. marka waxyaabahaas ayaa burburka keeni kara. waxaa kaloo burburka keeni kara haddii wadankii dadkii ay siday u noolaayeen dhaqaalihii u xumaado. haddii maalan awooddii dhaqaalaha wadanka ay xumaato, dhibaato badan ay timaado, abaara badan, dowladdana aysan lacag lahayn ama aysan caqli lahayn oo ay dadkii ay celiso. dadka dowladda waxaa loo baahan inay lacag meel u dhigto oo dadkii ay aamusiso. waxaa la aamusiyaa wadamada Yurub oo caqli leh, waxaa la aamusiyaa wadamada carabta, waxaa lagu aamusiyaa in rooti afka loo geliyo. tusaale ahaan maalanba wadamada Yurub markii shaqla-aanta ay badato dadkii xafiisay tagayaan lacag ay ka qaataan oo rooti ay ku iibsadaan. maxaa dhacay? haddii baahidii ay badato waa sida xayawaanka oo kale way kacayaan, waa la ogyahay. wadamada carabta sidaasoo kale batroolkii markii la helay cadaalad dara lagu hayaa, laakiin dadkii rootigoodii la siiyaa. yani faamil walba waxaa laleeyahay ilmahaaga waa lagu aroosinaya lacag intaasoo kun qaado. lacagtaas dowladda ay bixinayso waxay ugu talagashay dadkii inay ku aamusiso oy dejiso. marka haddii dhaqaale aysan haysanin dowladda, nidaamna aan jirin, marka waxay u badan tahay inuu meesha qarax ka dhaco sida Soomaaliya ka dhacday oo kale. marka arrimahaas ayaa keena burbur wadan burbur. waxaa kaloo wadanka burbur ku imaan karaa iyadoo nidaamkii uu jiro dadkii gruubkii wadanka ku heshiiyey inay xukumaan ayaga inay iskhilaafaan. dadkii awoodda military lahaa ama wada qabsaday in qaar ka mid ah ay rabaan inay dadkan aysan ogoleen, ninka madaxweynaha aysan ogoleen oo ayaga isku dhacaan. haddii ayaga isku dhacaanna waxaa imaanaysa in meeshii laga faa'iidaysto oo amnigii meesha uu ka baxo. tusaale haddaan soo qaadana waxaa waaye wadamada carabta familia ku heshiinay boqortooyo ay maamulaan. dadka waxay u maleeyaan mucaarad badan waa jiraa,
wax soo ag dhawaan kara male laakiin haddii dhexdoodii dad walaal ilma adeer ah ay ayaga dhexdooda isdagaalaan watan ugu xun oo sahal ay maaragtay lagu ridi karo wadamada taa aan sheegnay marka waxaa waay habka oo wadanka ku burburo waxaa kaloo meesha jira maxay dhahaan awoodda madaxweynaha adduunyada siyaasadda waa kala nooc wadamo badan wadamada yurub adduunkao dhan marka hore isku mid ay wada ahaayeen haddaan runta isu sheegno waxaa jiray boqor dadka xoog ku qabsaday ama lacag ku qabsaday oo maxay dhahaan wadanan intaasoo dhul qabsan jiray markuu qabsado dadkii canshuurta uu ka qaaday canshuurtaas waaye canshuurta waxa keliya ra-sumaalka keliya oo wadanka lagu maamulo canshuurtii lacagta uu ka aruuriyey ayuu ku maamulaa asigana raax ugu noolaan jiray marka boqorkii siday u socotay boqortooyadii sidaa lagu noolaa ilaa iyo hadday soo gaartay waa laga sii dhaxlay ilaa iyo qaar waa ka jiraa dadka qaar way diideen waxay dhaheen family keliya oo boqortooy noqda maaha wax cadaalad ah wax diinta dhigaysana maahan way diideen laakiin wadamo badan oo yurub ka mid ah ayaa sidooda ku dhaafay ayagoo ay ogsan yihiin inay cadaalad ahayn laakiin waxa ay reer yurub iyo wadamada carabta ay kula duwan yihiin boqortooyada ingiriiska waa symbol wax la dhahay symbol oo calaamad sharaf oo leeyahay meeshan lacagtana lagu ogol yahay oo dhaxal ahaan taariikh aanan kusoo gaarnay lacagtii cun guri weyn deg markii madaxweyne shisheey u yimaado ayaad soo dhaweynaysaa markii shirka aan furaynaad imaanaysaa dalkan Sweden waa leedahay boqortooyo waxa ay sameeyaan waxa waayo waa keliya maaragtay diblomaasiyadda markii loo baahan yahay magaca Sweden in kor loo qaado inay soo istaagaan ay hadlaan laakiin awoodda wax qaybsiga awoodda shaqada shaqo kuma laha way kala sooceen laakiin waxaa jira boqortooyo wadamo kale sida maaragtay Brunei wadamada Sacuudiga iyo ayaga ayaa maamula ayaga awoodda military xukuma ayaga marka kuwaana waa dictator wax ma dhaamaan dhibteeda ay leedahay marka madaxweynaha haddaba si uu awooddii wadanka shacabkii uu kasbado waa laba nooc madaxweyne markiisa hore militariga ka soo baxay sida Africa ay u badnaayeen militariga ka soo baxay militarigii maamuli kara wadankii xoog ku qabsada askartii iyo militarigaba asiga ay hoos yimaadiin marka ay aaminaan ku kalsoo yihiin nin fiican inuu yahay lagu kalsoo inuu yahay nin fiican oo cadaalad ah oo dadka dhan ay og yihiin wadanka inuu hor u wadaa kaa waa fiican yahay xataa dictator hadduu yahay laakiin shacab wuxuu kasbaday iyo dad la shaqeeya militariga oo kusoo raacay in uu yahay nin fiican oo wadanka wax u qaban karo waxaa jira mid kale oo xoog ku qabsada laakiin dadka asiga soo raacay ka dhiga dadka ina adeeradiisa ah oo ogsoon in ay ugu hiiliyaan waxa la yiraahdo qabiil waa kan hadda Soomaaliya iyo wadamo badan ay ka jirto maxaa yeelay dadka kale oo dhan kalsoonidaas ma siinayaan maxaa yeelay waxa waaye nin waliba wuxuu rabaa inuu qabiilkiisii meesha ku bato awood yeesho marka waa la iska hor imaanaya marka labadaas dhibaato ayaa jirta ta saddexaad waxaa jirta in diintana ay sheegayso in wadankii lagu maamulo shuura sida waayidii hore ahaan jirtay in guddi la sameeyo guddigiina ay wada tashtaan oo shariicada lagu dhaqmo marka arrimahaasoo dhan iyadoo ay jirto waxaa meesha imaanaysa Soomaaliya xaaladeeda maanta ku jirto ku sugan watan anagana ku sayso waxa waaye markii 90kii burburkii u dhacay xaaladdu waxay noqotay in burburka nidaamka uu ku bilaawdo oo nidaam qabiilo gaar ah oo dareensanaa in la dulmay oo madaxweynihii afgambiyey oo ku soo baxay anagii dhibaatada ku jirnay anaga fursad helnay marka ayagii maadaama ay qabsadeen oo ay haystaan ayagayna waxyaabihii taariikhda ay maqleen dhibaatooyin badan leedin geystay tii mid ka mid ah inay sameeyeen wadankii marka wuxuu noqday kudka guur khanja u guur hayale dhibaatooyinkii laga baxay ayaa haddana waxay noqotay in dhibaatadii mid ka mid ah iyo mid ka sii xun in la galo waxaa loo galaya waxa waaye nidaamkii markii hore uu ahaa qabiil ama waxyaabo badan oo dhici jiray oo dadkii u arki jireen ciil ay qabeen ayaa hal mar meeshii qaracday ay noqotay sida u sii socotay marka qabiilkii ma noqonin sidii maaragtay la filayay maxay Soomaaliya gobol loo kala degan yahay nin walba gobolkiisa ku laabtay
gobolkiisu xoojiyey marka waxay noqotay qabiil walba inuu qabaa'il badanba inay goboladooda ay degan yihiin marka waxaa soo baxay maamul goboleedyo kala nooc ah ilaa iyo hadda waxay taagan tahay marka in wax walba oo soo baxa nadaam walba oo soo baxa inaysan sahal ahayn inay dhacdo inuu fursadii madaxweynihii hore allah u naxariista maxamed siyaad bare uu helay oo kale inay shacabkii hal mar ay wada aaminaan oo hub kala dhigo shaqa loo soo jeesto sida ololihii horumarinta ciidamadii gulwadayaasha waxaasoo kale inaan la keeni karin maxaa yeele nin waliba oo arrintaas la yimaado oo saca kalsooni damba lama siinayo marka su-aasha waxay tahay maxaa la samayn karaa sidee ku dhici kartaa marka in dadkii habkii waxaan dhan in laga baxo laba arrimood in nin caaqil ah oo dadka been u sheega khayaana laakiin khayaana kusoo gala tuugnimo kusoo gala laakiin sida ujeedada u wata ay tahay ujeeda fiican oo dadkii intuu been u sheegay markay aamineen qabsaday fursad uu ogsoon yahay in indhaha ay furan yihiin oo mar walba maxay dhahaan markii la ogaado in laga hortagayo maadaama ay tahay laakiin inuu meesha keeno nidaam uu dadka ugu muujinayo in ay nidaamkiisu cadaalaya haddaba su-aasha waxay tahay sidee lagu keeni karaa cajalada dambe waxaan kusoo qaadanaynaa haddii ay soo baxdo qof fursad uu helo oo maamul goboleedka dhan ay aaminaan la isku keeno waxyaabaha uu sameyn karo oo fiican oo sir ah marka nala soco insha allah waxaa kaloo haddana kusoo xiga aan kusoo qaadanaynaa anagoo isku cabirayna soomaaliya waxay ka dhacay iyo suuriya iyo wadamadan kale libiya waxyaabaha ka dhacay sidee ayaga ugu socotaa inay dib usoo kabsadaan midnimadii soomaalina ay ku adag tahay maxaa keeni kara waxaa kaloo soo qaadanaynaa iyadoo dadkii ay sida isugu fiirinayaan oo la leeyahay qabiil hebel ayaa madaxweyne walba qabiilu ka dhashay qabiilkan ayaa maanta meesha haysta qabaa'ilada kalena imise heli doonaan oo mar kasta 4.5 aysan meesha ka maqneen sidee looga bixi karaa oo ay noqon kartaa in dadkoo dhan ay aamineen hogaanka talada haya hogaankii oo sida muraayad oo kale dadka tusay inuu cadaalad yahay wax sameynayo taasee loo gaari karaa waxaan kusoo qaadanaynaa cajalada dambe insha allah nala soco waa part 2